كبحتانك سفير ترسن وكبح شلي شركي كصعد كينيا aad baan soo dhaweynayaa talaabada uu qaaday Safiir Maxamed Nuur Tarsan waa talaabo lagu qasbanay in la sameeyo sababta meel ma aragtay lagu xadgudbay madax banaanida Soomaaliya in uu fadhiyo ma ahayn marka talaabo ku haboon ayuu qaatay talada ma seegin waa lagu bogaadinayaa waan lagu dhiirigelinayaa waan lagu amaanayaa arintaas waayo ma aragtay Kenya faragelin bay ku soo haysa Soomaaliya sanado badan hadarna ma soo bilaabanin madax badan ayaa ma aragtay isbedeshay ayaa faragelintaas ay soo jirtay waxaan rajaynaynaa maadaama ay aad u soo hayeen nidaamkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad u soo hayeen maadoo cali masaarka ay ka soo qayb galeen bog cusub oo qalaqaad wanaag ahaan furina ay dhaheen inay ma aragtay كوان توبي دونان وحي هراء علاقات وناكسن أي معرفتي رادين دونان يحرر وناكسن احترام أي رادين دونان أي قياسيني لكن سيدي اللي في العيبة فرقلنتي أي ولسي وضعين وحرجيننا إن شاء الله تعالى وصور وين يا رجلنت أي بحيان لكن وحن كرجيننا مر لبعض إني سنسول لابنين فرقلنت نوع صقلة waxa way nabad la toogo nabad ma ahan in maalin walba Soomaaliya kaliya ay tiraahdo xiriirka wanaagsan aan rabnaa aan ixtiraamno cilaaqaad kala wanaajiyo fargelinta la joojiyo ay tiraahdo ayadan ay ku sii socoto sax ma noqonayso marka waxaan ka rabnaa dawladda Kenya in habdhaqankeeda ay la timaado ixtiraam iyo xiriir wanaagsan inay la timaado isxaq dhawrid istixgelin in la timaado ayaan ka doonaynaa xuduud dheer ayaa naga dhaxayso dana badan ayaa naga dhaxayo wanaaga aan rabno waa inay ayagana rabaan xiriirka wanaagsan aan danaynayno waa inay nala daneeyaan marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa fargelinta Kenya ee muddada dheer soo socotay in ay halkaas ku ekaato ayaan ka rajaynaynaa oo aysan soo laabanin insha Allah taala Soomaaliya maalin ay xoog badnayd oo aan la soo damci jirin oo aan faragelin la soo maagi jirin way jirtay hadarna way gaari doontaa haduu Ilaahay leeyahay waan rajaynaynaa in gaarto nacasnimo way maalinta aan awood badnayn cidii ma aragtay ku soo dhiiran waysay inay farageliso maanta oo aan walaalahoodnahay oo garabkooda aan u baahanahay inay ku dhiiradaan inay farageliyaan oo ay ka shaqeeyaan inaan soo istaagin waa nasiib darro waxay ahayd haddii aan iskhilaafsanahay ishayno inay ka shaqeeyaan sidii ay nagu heshiisin lahaayeen sidii ay wanaageen ugu shaqeyn lahaayeen inay ka shaqeeyaan bay ahayd laakiin iskhilaafkeena kala qoqobnaanteena kala gogoosashadeena inay ka faa'iideystaan waa nasiib darro muujinayso maxay ahayd daciifnimadooda iyo meesha ay nafka raadinayaan muujinayso Soomaaliya dawlad laga heebaysta ay ahayd waa inay noqon doontaa haduu Ilaahay yiraahdo Kenya waxaan ka rajaynaynaa in falalkaas aysan dib dambe u soo laabanin xiriir wanaagsanna iyo bog cusubna inay furto markastaba annaga Soomaaliya xageena waan ku dadaalaynay in xiriir wanaagsan dunida oo dhan iyo dalalka dariska gaar ahaan aan la lahaano marka intaas ayna la tixgelin doonaan waa rajaynayna insha Allah taala ogeysiis muhiim ah xarunta timaha iyo maqaarka ee Infinity Hair and Skin Care waxay idinkugu diyaar dhakhtar iyo qalab casri ah oo lagu ogaanayo waxyeelada timaha kana daweynaya timaha sida daadashada ku timaada rag iyo dumar khafiif ku yimaada timaha rag iyo dumar beerista timaha garka iyo daweynta dhammaan cudurrada ku dhaca timaha sida agoolka iyo waxyaabaha la midka ah xaruntu waxay idin sameynaysaa 25 May tima beeris oo ay sameynayaan dhaqaatiir Turki ah xaruntu waxay ku taallaa wadada Maka al-Mukarrama gaar ahaan isgoyska Xaaji Baasto telefoon lambarada aad kala xiriiri kartaan waxa kamid ah eber 624522 ama 84 eber 212 balanteenu waa xarunta tima beerista iyo maqaarka ee Infinity Hair and Skin Care